الله الحمد لله. أدنى السلام يا أنا كم هذا النايا طريقك إلى صوصنا بعد في جروه دوار ولا وده وجايو وحدير وباهن إن فاهم كبشي معها بنت لان أنت هدر مدة هيد وحاي كشرتي حالات أدود بدن ونحيا بدن مركز لقى قطر جيرين يسجلتان كبنت لان حالها جرا oo dhan mas'uuliyadeeda waxa dabarka u ritay oo mas'uuliyada qaadaya maamulka oo cadwali xaaligaas uu hoggaanka ka yahay waxa kamid ah iyadoo aan dadkii taladii waxa laga siinay iyada oo la musuqmaasuqay awood qaybsigii siyaasadeed iyo hantidii dadku ay wadaageen iyada oo arrimo badan oo u baahnaa maadaama waddanka uusan ka jirin axsaab siyaasadeed aysan ka jirin loo baahnaa in kala wadaag dadku ay ahaadaan oo wixii u baahan dhaqanka in dhaqanka lagala tashado wixii u baahan siyaasiyiinta in siyaasiyiinta lagala tashado wixii u baahan saraakiisha iyo khubarada ciidanka iyaga lagala tashado waxaad moodaa dhammaanteed cabdiweli iyo xukuumaddiisu inay ku takrifaleen وفي بقى يجوا أي قبطان وفي سياسيين تيجوا يسكو كوبان وفي عيدا ماذا يجوا يسكو كوبان الرواية أسمعك صحيح بطلان بحسيسي إن بطلان أي نقطة نقط عن لو وداعين وثلاثة إذا عن لو وداعين وسياسة إذا عن لو وداعين وحكمة كذا عن لو وداعين وترتان كذا يدفع إذا عن لو وداعين inay noqoto bay xalsiisay Puntland waagartay waxyaabaha ugu badan oo aan mudada ka qaybinayno aan ka cadanaynay arrimahaas ugu waaweyn wax noo muuqday bay ahaayeen hadeerna waa muuqataayo waxaad moodaa in wax sii kordha u mooyaane wax ka soo reyna inaysan jirin hadday xaaladdu saa ku sii socotana waxay imaanaysaa Puntland ma aha maamul haddii uu khaldamay dadkeedu ma aha dad arki kari waaye ama tashan kari waaye waxaa imaanaysa dadku inay tashadaan dantooda iyo maslaxadoodana ay u leexdaan haddii maamulkii markaa jiray maslaxadii iyo mas-uuliyaddii loo dhiibay sida ahayd hadduu uga soo bixi waaye waa gartay mudane cabdisamed maxamed galan adigu waxaad ahayd guddoomiyihii hore ee gobolka bari ee Puntland waxaa la leeyahay oo dad badani ay kugu eedeynayaan cabdisamed maxamed galan dawladda madaxweyne cabdiweli gaas markii meesha ay timid xilkii guddoomiyaha laga qaaday isagoo marka xil raadisa ayuu kacdoonkan hormuud ka noqday wuxuuna lacag ka soo qaatay dawladda Soomaaliya oo madaxweyne xasan sheekh ugu horeeyo eedeymaha noocaas ee dad badan ay ku soo jeedinayaan cabdisamed maxaa ka jira aad baa umahadsan tahay anigu xilligii aan xilka wareejiyey waxay ahayd 29 bishii May 2015 si sharaf leh u wareejiyay xilka xaflad ballaaran oo qaybaha bulshada oo dhan ay ka soo qayb galeen baanu xil wareejinta ku sameeynay aad baanu ugu faraxsanahay inaan xilka wareejino hawshatan aanu ka hadalay dhibaatooyinka jira inaanu ka hadalno oo aanu media u soo bandhigno oo aanu qaybaha kala duwan bulshada u soo bandhigno waxa ay tiri xilliga aanu wareejinay waxa la oran karaa bilo badan kadib haddaanu marka aanu rabnay inaanu ama aanu xil ku gorgortano ama kaanu haynay aanan wareejin xilligii ay ahayd oo ku habboonayd waxaanu oran lahaynaa xilka wareejinayno ama ku dagaalan lahayn ama waxaanu sheegi lahayn sababaha aanan markaa ku qanacsanayn xilligaas aanu sheegi lahayn haddaanu xilka wareejinay oo aanu si sharaf leh uga baxnay oo aan noqonnay dad madax bannaan oo markaa maamulka markaa jira aan ku jirin because isma qaadan karto laba arrimood jiiftan aad ka tirsan tahay oo aad markaa la shaqaynayso daliisheeda waxaa ku sheegi kartaa keliya xilka oo aad ka digtid ama lagaa qaado ama adigu ka tanaasul oo adigu risaan gare laakiin adoo kursigii fadhiya maamulka markaa jira daliishiisa inaad ka hadasho qof walba siyaasadda wax ka garan kara wuxuu garan karaa inaysan ahayn wax isqaadan kara ama isqaban kara taasa marka waxay keentay markaanu u madax bannaanay oo aanu noqonnay
taasaa marka waxay keentay inaanu fursad fiican u helno inaanu dadka aan xogta la wadaagno oo xogta aanu hayno annagoo aan buunbuuninayn annagoo aan been abuur samaynayn annagoo aan burbur sabab u noqonayn inaan soo jeedno taa waa qodobka labaad xukuumadda Soomaaliya ee dowladda federaalka ee uu hogaaminayo mudane xasan sheekh maxamuud horta waxaa meel ka dhaca hadalkaas in lagu celceliyo ama dad mas'uuliyiin afkooda u ka soo baxo xukuumaddu waa xukuumaddii Soomaaliya oo dhan baa dooratay maamulada dhisaysay oo maamul goboleedyada inay dhisto waxay ka mid tahay waajibaadkeeda inay furfurto oo burburiso ugu jirto mandatekeeda in marka horta loo meel ka dhac la sameeyo waa waxaan aad u habboonayn oo laga fiican yahay oo aan siyaasadana ku wanaagsaneyn Soomaalinimadana ku wanaagsaneyn waa gartay annaga laftigayaga in meelna looga dhaco oo nalaga dhigo dad murtaziqa ah oo calooshoodu shaqaystayaala oo nidaamkii iyo systemkii dadku ay dhisteen burburinaya iyadoo laftigeeda waa meel ka dhac marka waxaan leenahay dadku ha ka waantoodeen mar haddaan wax cad markhaati leh oo muuqanaya aan lahayn waxyaabaha ay ku marmarsiyoodaan oo dadka raba barnaamijka inay tarwiijiyaan ama ay marketing u sameeyaan waxaa ka mid ah waxay yidhaahdaan gallan markuu xamar tegay waa lagu soo dhaweeyaa wuxuu la fadhiistaa ra-iisul wasaaraha wuxuu la fadhiistaa madaxweynaha casuma madaxtooyadu tagaa wasiiradu la kulmaa haddii arrintaa dembi hadday tahay cabdiweli oo xukuumadda Puntland hogaaminaya isagaa iga badsada hadeer waa la socotaa 3 sano wax dhiman cabdiweli madaxweynaha uu yahay inta uu xamar tegay wax la tirin karo oo la koodi karo maaha waxaa la oran karaa intuu xamar tegay intuu Puntland fadhiyay intuu xamar tegay baa badan baa la oran karaa mar walba uu tagana madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiiro iyo gudoomiyaal degmo iyo kuwo gobollo iyo kulli waa u arkayay marka arrintaas wax magaradka aan siyaasadda wax badan kala socon waxaa la oran karaa waxay u tahay madadaalo iyo waxay ma garanaysaa iyo qoryaha maamulka fashilmay cabdiweli iyo tiimkiisa inay iyaga laftigooda cimri dherer ka dhigtaan iyo waxay ma garanaysaa ay dadka ku maaweeliyaan waa gartay mudane cabdisamed maxamed galan adigu hadda ciidamo badan baa la sheegaa inaad aruursatay ciidamada ayaad u aruursatay maxay tahay sababta rasmiga ah ee ka dambaysa ciidamadan aad aruursatay aad baa umahadsan tahay horta waxaa wanaagsan waddanku maadaama hadalkaygii horena waa ugu jiray waxay ahayd in waddanka loo sameeyo xisbiya qaran si dadku ay u helaan meel ay ku cabiri karaan ra'yigooda xisbiyada qaran marka ay jiraan oo xisbiya mucaarada ay jiraan oo diiwaan gashan oo mas-uuliyiin siyaasiyiina ay ku diiwaan gashan yihiin waxaa fududaanaysa dowladda in la dhaliilo xukuumadda markaa jirta waxaa fududaanaysa ceebaheeda in la sheego waxaa fududaanaysa in lagala qayb qaato saxitaanka khaladaadka jira laakiin maadaama cabdiweli uu arrintaa uusan samayn oo maanta sanadkii 3 baa gebageba ku dhow opportunity fiicanna wuu u helay iyo fursado fiican oo uu ku samayn karay arrintii xisbiyada badan iyo dimuqraasiga in loo diyaar garoobo maadaama arrintaa uu rakaateeyo oo uusan samayn oo xukuumad keligistaris ah oo uusan cidna tala wax ka siin uu sameeyey cid allaale ciddii damacday inay hadasho oo markaa damacday inay tilmaanto buugaha iyo nabarrada ay xukuumaddiisu leedahay go-aankeedu uu noqday tii aniga laygu dhuftay waa laga wada warhayaa Soomaali iyo reer Puntland dhammaan waa la wada ogyahay 3 bishay ahayd bishii 2 2016 markii anoo gurigayga degan gurigaan magaalada Boosto ka deganaa 4 wiil oo aniga staff ii ahaayo sharciyaduna ay siinayso maadaama mas-uul hore ahaa lay ogolaaday oo si sharciya u diiwaan gashanayo booliska Puntland ka tirsanaa in laygu soo weeraro 10 gaari oo tiknika ah iyo ciidan boqolaal ah gurigeena nalagu dumiyey nalagu gubay raggan qaybsad halkaa lagu laayay annagana ilaahay uu naga salaamad bixiyey waxaana lagu leeynayna waxay ahayd cabdisamed maxamed galan waay uu uga hadlay xaqaa'iqda jirta intaas ahayd waxaana cabdiweli isku seegnay taasna marka waxay keentay mar haddii ay arrintu halkaa joogto oo qofka hadduu hadlo go-aanka cabdiweli uu yahay in la toogto oo halkiisa lagu qallajiyo waxaanu ku qasbanaanay si aanu si furan u hadli karno si aanu khaladaadka jira u sixi karno si aanu wixii khaldan aanu
samaynayaan u joojin karno waxaanu ku qasbanaanay dadkii arrinta tan iyo fikirkan taageersanaa oo dhan oo kacdoonka qaybta ka ahaa in ciidan si tatawuc ah loo sameeyo. ciidankaas waa ciidan u taagan difaaca Puntland, waa ciidan u taagan khaladaadka xukuumadda Cabdiweli ay wadaan inay ka hortagaan, waa ciidan u taagan inay argagixisada dalka ka difaacaan, lana og yahay in ay dagaalkii ugu horreeyay ciidankaasi u galay uu ahaa dagaalkii argagixisada iyo al-shabaab uu kula dagaalamay buuraha kan bari dhinaca bariga ku yaala, khasaarana ugu geystay deegaankiina kaga saaray la wada og yahay. isla markaa waxay u diyaarsan yihiin in ay suuqa jira iyo corruptionka jira ka hortagaan, khaladaadka Cabdiweli xukuumaddiisa ay ku jiraan hadday sixi waayaanna aysan ku eegan oo aysan noqon dad banaanka ka fadhiyo daawada ay gacanta ku qabtaan Cabdiweli iyo xukuumaddiisa iyo inta musuqa wadana maxkamad sharci ah iyo garsoor la hor keeno, maamulka wadankana gacanta lagu qabto, kadibna dadkii mudnaa oo talada lahaa dib la isugu yeero, gogol nabadeed la dhigo, tala loo dhan yahay Puntland la isugu yimaado, halkaana mar labaad dib loo yegleero waxaa loo yaqaano Real Puntland. maxaa yeelay Puntland haddeer joogto waxay noqotay Puntland magac u yaal ah, waxay noqotay Puntland intaa laamiga uu dareersan yahay ku kooban, hadday tahay sharciyadeedii iyo hadday tahay magiciiba. marka si looga gudbo oo Puntland dhamaystiran oo la yaqaano xuduudaheeda iyo boodharadeeda, la yaqaano deegaanada ay ka kooban tahay, la yaqaano qabaa'ilka degan oo loo wada dhan yahay oo la wada difaacdo, cashuurteeda la wada bixiyo, horumarkeeda loo siman yahay si loo helo, waxay markaa ku qasban yihiin ciidamada naftood hurayaasha ah oo u kacay inay Puntland badbaadiyaan. waxay ku qasban yihiin inay gogol dhigaan dhammaan waxgaradkii iyo dhaqankii Puntland ay lahaan jirtay inay isugu yimaadaan halkaa. markaa inta Puntlandka dhabta ah ama Real Puntlandka ah halkaa ay isku raacaan, inta tegaysa oo u garata inaysan dani ugu jirin maamulka iyo Puntlandka harta aysan dani ugu jirinna halkaa la isku macsalaameeyo. wax qasaba ma jiraan, dadku waa xor, maamuladu waa xor, meeshii ay dadku u arkaan danbay aadayaan. Puntland haddeer waxaanu wada ognahay waxaa jira maamulo badan oo isku dhex jira iyo xuduudo fara badan oo isku dhex lifan. dhinaca Galmudug baa ku dhex jirta, xagga kan Khaatuma ku dhex jirta, halka kan kuwa kale aanu maqlaynay oo iyagu ismagacaabay oo ku dhex jira. waxaasoo dhan waxay u baahan tahay wax dhab oo la isku ogyahay iyo xuduudo iyo boodharo sharciyeysan in laga yeesho. ciddii markaa u aragtay inay meel kale aado ama maamul kale samaysato xaq bay u leedahay inay samaysato, midna lama joogi karo. inta isku harta intaasaa waxay noqonaysaa Puntland dhabta ah, iyadaana difaacanaysa Puntland, iyadaana magacii iyo sharciyadii yeelanaysa, iyadaana markaa ku shirtegaysa Puntlandka dhabta ah. waa gartay galan, waxaad afka ku dhufatay Puntland iyo mataqaanaa waxyaabo adigu aad ugu yeertay cadaalad darro. ciidamadan kacdoonka ku jira ee aad hogaaminayso inaysan eegan doonin oo aysan banaanka ka joogi doonin. tilaabadaas qaab nooceeya ayaa dadka reer Puntland ee ku dhageysanaya ugu fasiri kartaa? igu ari su'aashaada raalliga. waxaad afka ku dhufatay mataqaanaa waxaad cadaalad darro ugu yeertay ciidamadan kacdoonka wada ee aad adigu hogaaminayso inaysan banaanka ka joogi doonin oo aysan iskaga eegan doonin. marka qaabkee arrintaa u wajihi doontaan? waa mahadsantihiin. arrintaasi uma baahna tafaasiil badan, uma baahna. maanta alxamdulilah ciidamada tan u kacay inay Puntland badbaadiyaan waa ciidan awood u leh inay Puntland oo dhan difaaci karaan, waa ciidan awood u leh in ay Puntland xuduudadeeda iyo boodharadeeda oo dhan ay difaaci karaan oo xiri karaan. tababarkoodii baa u dhamaystiran, tiradii laga rabay bay joogaan, tayadoodii baa buuxda, agabkii ciidan ay u baahnaayeen baa u dhamaystiran. waxaanu marka u sheegaynaa cid walba, waxaanu u sheegaynaa inay u diyaarsan yihiin ciidamadaas badbaadinta Puntland. xukuumadda Cabdiweli hadday ku fashilantay inay Puntland badbaadiso, hadday ku fashilantay inay Puntland horumarkeeda qayb ka noqoto, hadday ku fashilantay Puntland oo sii googo'ayso maalinba qaybi soconayso inay hakiyaan, ku eegan kari mayno. waxaanu ku qasbannahay in Puntland
xukuumadda cabdiweli ay fashilantayna inay meesha ka baxdo waa lagu qasban yahay kadibna wixii markaa sharciyad iyo garsoor iyo maxkamado ay lahaayeen ay shaqadoodii qabsadaan ummadana inta la isaga imanayo oo si dhamaystiran oo muglin la isugu imanayo waxay ku qasban yihiin ciidamada tan u kacay badbaadinta Puntland inay iyagu Puntland gacanta ku hayaan inay hantida la wadaago gacanta ku hayaan in ay dhulka la wadaago gacanta ku hayaan in ay mas'uuliyadda la wadaago gacanta ku hayaan gobosha nabadeedna ay dhigaan wada tashiga ah ay dhigaan marka la isugu yimaado madasha wada tashiga ah halkaas waxa ka soo bixi doona wax la wadaago wax la wada ilaashado wax la wada difaaco cid kalsooni la siiyo inay Puntland hogaamiso oo maamul ah halkaas ay ka soo bixi doonaan inta ka horeyso halka inta laga gaaranayo ciidankan waxay u diyaarsan yihiin awoodoodana ay leeyihiin una tababaran yihiin taktiigii looga baahnaan uu u dhameystiran yahay agabkii looga baahnaa inay ilaa xilliga gacanta Puntland ku hayaan cid kasta oo Puntland damaacisa ama dhibaato la damaacisana ay ka difaaci karaan waa gartay adigu ka Cabdisamad Galan ahaan oo kacdoonkan sida la sheegayo hormuudka ah ciidamadan isku abaabulay diyaar ma u tahay inaad dawladda wada hadal la gashaan oo ma taqaanaa waxyaabaha aad hadda ka dhawaajisay wixii ka jira haddii la saxo oo ma taqaanaa dadka waxgaradka iyo simada iyo culimadu ka qayb galaan oo la dhameeyo wada hadal galo oo waxyaabaha aad tabashada ku sheegtay wax laga qabto oo aad tiri dawladdu laamiga ma dhaafto deegaanada dawladnimada la gaarsiiyo iyadoo aan adiga ma taqaanaa wasiirna aadan helen gudoomiye gobolna aadan helen Cabdisamad Galan oo arintaas ma ku qanci kartaa adigu mise waxay qayb ka noqonaysaa haddii wax la saxo in adiga xilligu siiyo aad u mahadsan tahay waxa weeye wadada anagu aanu hadeer marayno iyo qaabkan u shaqaynayno ma aha qaab xukuumadda hadeer jirta xil lagaga doonan karo qof kasta oo siyaasi ah uu qiimayn karaa in hawshan aanu wadno iyo kacdoonkan aanu wadno iyo meeshaan wax gaarsiisnay xukuumadda hadeer jirta xil kaga doonasho inaysan ahayn arrintu inay dhaafsiisan tahay haddii la helayo Puntland dhab ah oo talada reer Puntland oo dhan ay u siman yihiin oo dhaqaalaha reer Puntland oo dhan ay u siman yihiin oo horumarka reer Puntland oo dhan ay u siman yihiin oo awood qaybsiga siyaasadeed reer Puntland oo dhan ay u siman yihiin oo dhaqanka iyo tala wadaagga Puntland lagu dhaqi jiray oo dhan loo siman yahay xaasha lillahi anagu waxa weeye waxa aanu doonayno waa intaa waxa aanu raadinayno aanu ka dhiidhinayno waa intaa haddii la helayo oo isugu imaanayo oo anagu aanu talada wax ku yeelanayno oo adigoo hadeer nin dhalinyaro ah oo wariyaha talada wax ku yeelanayso oo gabadha baadiyaha joogta talada ay wax ku yeelanayso oo soo dhaweynayna wax allaala iyo wixii wanaag ah wax allaala iyo wixii horumar ah wax allaala iyo wixii midnimo ah laakiin waxaanu ka digaynaa in Puntland sida ay hadda ku jirto inaysan kusii jiri karin laguna eegan karin intaa un baanu ka digaynaa una diyaarsannahay inaanan ku fiirsan qaabkii la doono ha lagu saxo ama awood ciidan ha lagu saxo ama wada hadal ha lagu saxo ama qaab kale iyo cid kale soo dhex gasha ha lagu saxo laakiin in sida ay hadeer Puntland ay tahay in wax laga bedelo anagu muhiimadayadu waa intaa waxa la wadaago oo dadka u dhaxeeyana ay ahaadaan wax la wadaago dadka u dhaxeeya waxa la kala leeyahay oo ama shakhsiyan ama koox ahaan ama degsiimo gaara loo leeyahay inay ahaato wax degsiimo gaara iyo shakhsiyan iyo koox gaara ay leeyihiin inaan wixii isku khaldinay mid walba sumadda u leeyahay in la kala siiyo awooduna aysan ahayn ninka haddii 5 sano la doorto inaysan ahayn macnuhu in dadka inta loogu xareeyey xabsi inta loogu xareeyey furihii inuu isagu qaatay dadku halkaa ugu jirayaan 5 sanana suu doono uu yeelayo maalinba diyaaraduu doono uu fuulayo goboladii Puntland uu transit ku yahay diyaarad ku dul marayo inaysan ahayne ay tahay waxa loo dhiibtay in lagula xisaabtamayo hadduu waajibka gudan kari waayana way isaga ka awood badan Cabdiweli oo ka xeelado badan oo ka ciidamo badan oo ka taktiig badan waa barqacad Puntland laga wada kaxeeyay taa baa marka taariikhdu noqonaysa aadna u mahadsan